bisaduhu waa xayawaan guriyeed oo aad u faa'iido badan gaar ahaan marka ay dadku la noolaadaan. waa kuwan qaar ka mid ah faa'iidooyinka bisadaha. bisaduhu waxay kor u qaadaan farxadda iyo deganaanta nafta. cilmi baarisyo badan ayaa muujiyay in dad leh xayawaan gaar ahaan bisado ay leeyihiin heer hoos u dhaca walwalka iyo kacsanaanta. laba, bisadaha marka ay kugu seexdaan waxay kaa caawin karaan inaad si fiican u seexato sababtoo ah kuleelkooga iyo codkooga ayaaba ku raali geliya. carruurta ku barbaartay bisad waxay bartaan naxariis, mas'uuliyad iyo xanaanaynta xoolaha. afar, bisaduhu waxay cunaan cayayaanka sida jiirka, kaneecada, masaska yaryar iyo wixii la mid ah. waxay noqon karaan ilaalo dabiici ah oo gurigaaga ah. 5, daaweynta la xiriirta bisadaha ayaa loo isticmaalaa daaweynta cudurrada maskaxda sida niyad-jabka ama autismka. bisadu waxay si dabiici ah u dejisaa qofka. 7, marka loo eego eeyaha, bisadu waxay u baahan yihiin kharash yar, ma u baahna in la socodsiiyo maalin walba. si sahlan ayayna u nadiifiyaan naftooda.